نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما أخيارت ماشي فريد وسلامتهم ساكي وجديدين عن شركة قبلنا وحيتهاي أهل مهمة وما عرفتي مدة عن بأن هوشة دسووني وذا تشجع إياه برنامج عن كسر جرني بحنا إن إعلامنا سيأم أوقات أمة الصوماليات جارهان هير كفر قلبت وباق عن وجدين إنه أمة الصوماليات الدجان كود تهي كفر قلبت دبوشيسين عن أقو باقين وجد كان الشركة واسدة وياه وسلامتهين ساقي بالكين لكم حسنتهين ما أنتوا أي تعريف دتهي سقال يتمن بش جوبي توانات لبكون لباتين اللبو وحن باق نجيدين إياه لما أمد كسر جيدو كفر قلبت برنامج يعني كفر قلبت هتقوى جهني لكن جود أهان ودن أمد الصومالية دن نوع مركا أنا قلت وذا تشي بدن صومالية برنامجك عن كلا تشدي قدومية مدحوينها كفر قلبت مدن عبد العزيز لفت جرين سياسيين تدمان توضح اللبانة وحقرتك سأقول كلا مدح القرن حتى عن كلا تشدي أي وحن قوان سدي إن شرد بوهشيسين ربعة لو قبطور هير كفر قلبت وهاد أكتهين مدة حساسية لو جرا ذلك بوحو قلي ديقال دي وحورين ما دام أمود الصومالية دبنت هاي مركا سدا درادت دad aan madaysanayn يعني يقول مقاري كرو ما حبا جرت دad أفكا ما يدكو هذا يكون ما هذان هالي هذا خير موافق دعاء من باهم خير مخالفين هبار من دمون مركا ساس درادت waxaan maaragtay laga maarmaan noqotay dib u heshiisiin dhaba in loo qabto arrintaas oo runtii madaxdii khuseysay siyaasi ha noqdo dadka caadiga ha noqdo ay wada dareensanaayeen in loo baahan yahay muddadan dib u heshiisiin dhaba deegaankaas laga qabto sidaa daraadeed waxaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed deegaankaas degan in ay dib u heshiisiintaas ayidaan ku talagalaan si maaragtay ay u gaaraan midnimo dhab ah iyo in maaragtay shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaas degan oo dhibaatada ku habsatay oo xorriyadooda iyo maaragtay sharaftooda meel looga dhacay si ay ugu xoroobaan marka sidaa daraadeed waxaan ku talagalay qof kaliya waxa ma wadi karo markaan saas leeyahay ka odaytanimo ahaan mas'uulkii deegaankaas ka soo jeedo oo hadda ma aragtay xilka dawladda ma aragtay maanta socotan ugu sareeyay maadaama aan ahay keligay go'aankaas kama gaarin laakiin waxaan isu xilqaamay in muwaafaqo la gaaro xildhibaanada labada aqal yaan ka bilaabay madaxweynaha state-ka markaa siyaasiyiinta aan dawladda iskula jirnaa barnaamij isla fahanay waxaan maaragtay kulan la yeelanay sid maaragtay mar ila bi saddex madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdi Aziz runtii asagana si sharaf badan baan wala qaatay marka arrintaas maadaama meel kasta ay soo martay marka maanta waxaa la gaaray waqtigii la ilaamin lahaa waxaan ka soo qayb gali doonaa haddii alla idmo dhammaan siyaasiyiinta arrintaas ay khusayso deegaanadaas ka soo jeedo oo taladooda laga maarmaynin dhammaantooda waxaa laga codsanayaa inay ka soo qayb galaan waxaa kale shirkaas muhiim ah inay ka soo qayb galaan la'aantooda lahayn odayaasha dhaqanka culamaa u diinka aqoon-yahanada dhammaan qeybaha bulshada kala duwan inay ka soo qayb galaan shirkaas si uu noqdo miro dhal sidoo kale waxaan runtii baaq u jeedinayaa hay-adaha dawladda xukuumadda ugu horeyso gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo barnaamijka maaragtay abaabulkiisa hadda maaragtay talo badan aan ka yeelanay inay kaalintoodii dhabta aan ka qaataan yacni si barnaamijku u noqdo dib u heshiisiin loo dhan yahay xukuumadda waad ogtihiin wasaaradda arrimaha gudaha dastuuriyan waa wasaaradda u xil saaran si gaar ah dib u heshiisiinta ayagana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay kaalintooda ka geystaan
waxaan rabaa gebagabadii muddada furitaanka shirkaas uu bilaaban doono gadaal laga soo sheegi doono haddii alle idmo muddo aan fogeyn waxaan rajaynayaa inuu noqdo shirkaas shir midho dhal ah ee ummadda Soomaaliyeed guud ahaan wax tara gaar ahaan koonfur galbeed ayatiinkeeda wax weyn ka bedela si markaas ay u bilaabato dib u xoreynta ummadda Soomaaliyeed maanta u diyaar garowday yani ay u noqdaan ayadoo madaysan isku ujeeda ay u galaan ka hor kadib markii wax kasto la kala tabanayay oo ma aragtay hurguf siyaasadeed ah amba isqoon kale ah markii ma aragtay laga gudbo lis cafiyo la heshii kadibna loo dhaqaago dib u xoreynta ummadda Soomaaliyeed maanta ma aragtay diyaar u noqotay hormuud ka noqdaan arrimaha ugu muhiimsan ujeedka laga leeyahay muwaafaqadaas midnimadaas sharaftaas iyo is xoreyntaas deegaanadaas dhibaato badan ku habsiteed ogtihiin in ay noqdaan deegaanada hormuud ka noqdo is xoreynta iyo midnimada horseed u noqdo inay noqdaan ujeedada ka dambayso shirkan waa sidaas aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka intaas uu ku egyahay su'aal haddaan ka jawaabahay ma jirto su'aal uma baahna cidaas ma shirka cidii danaynayso halka soo qayb gasho waa ku soo dhaweynayna aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu